ما جعيل بعد كجورستي مس إن عن كنا خط أنا كنا خد أمك جورسنين أنا عطاش شل ولالكي وهاي مركا إسبرني نهارد أنا دردران تاجي اسكو براني لف كلافة اسكو صو براني عطاش أنا عن كنا خد أمك جورسنين أراس كان أساك الدم بينا بابليك الله أنا جبرو أسعانا يعني كألي علاشة إدم قطي سوعان جري دتك مركاتية كيين أنا سيدي سكر بعد هاي أنا هرت واحد جعلة وخو مال أسين جعلك أو خالة وتحجلين أسين تحجلين تا وتحجلين ويقصوا بحباي ما أنت أو سحنوا إلى الأخمة أنا محل ده واقف قصتيو حتى وان كلا جماعة. وجهي مصلحة بالكورن ما اسكو حرنا جوركي عطاش إنا الدردر ميديا كشقيس ما واحد اسكو حرن بوها. هرت جورك واحد اسكو حرنا ملا مركز انت مش قيل يعني دور بلاد أفر بلاد مركز مش قيسنا عين وجورك انت بقى حدا ولا ليالو أنا هاي أنا ناخذ العادة سوشيال ميديا نيوز وجلوس أنا واحد ليجس يعني وحيسمو أو ببلاد أو فيوس كانوا أوفينا مقارنة 1 مليون ميلاس وتابنيسي فيسبوك مركز حالي ده مكسين يعني دهن gurigan iska jooga deesas leedahay marka hadan ilmiyo oo hooyadey oo baahan fiirsan waayo aabees uu xumo ku dhacday gabadhaada caanay noqday xamaal waa baclacay aabi aadana waa u tag waxaan dheeyay walaalayaal oo shaqada isiyaan dheeyay shaqada uma ogoliyo dhaameel kale inay ka shaqeyso ii diib inaan meel kale waayahay ani marwaahay warkiisa qaatay maxaan dhahay bis markaas kadib durdura iska taga ayagiyaan dib oo noqdo oo lacagta ii diiday بس هذا ديب أو نقضي كيف هذا نقضي أيجا وياه مصلحة أديقونا لقو فورين ونكاع عطاش لجوجو محد سجل فويس شقة دردر ونكاع ناد لجوجويس دنا يقول إنسي محلنا نكاع أسي شقة موسم جديد هي يعني شقدان oo lacag daalisiineen oo lacag ay diideen waxa ay meel kale ka shaqeysanayaan ay shaqo aada qof aan ahayn markaas oo idaa meel kale kuma ogol yani hadda warku ma fahant si fiican meel aad kartid malahan waayahay oo kayaan dhahay hadii bakaar aaday hada meel walba aaday meel kasto ila jiray oo wax soo gadanayo ma fahantay si fiican laakiin su'aasha ku weydiin waxay tahay hadda waxaad sheegtay in afar biri furan tahay shaqada waxaan oo noqdo waxay tahay maxal dhaay sida darteed waalidkii ilmaha maxal dhaay aan fiirsan waayay marka ku noqdo waxay dhaayeen $100 intaas oo siinaa horta dhiima dhihin shaqada waayahay ka shaqeeyaa la dhahay wax fiican waa qaadanay bish markay dhamaato $100 la soo tuuray $100 inay uu yarta waa dareemay حال ده لعتها ويرتها وحسواد دريم ولكن وإسكتون قاتي وحال إسله بري على الجود ما يصير دونا على عكل وسين دونا بيش دمبو بيشي كل سيدوكل بيشي كل سيدوكل بيشي كل سيدوكل حال ده مركز كوس عدار كنين كان إن عمل كش قاستاد أو ديدني بس أنا بسك جار مركز دمب كين يلي وضي أو هدني كين دبعتين سكلا كل ما أنا جو جار إن كهر ذاك كوبا waayahay waxaan rabaa inaan ogaado hadeer waad kala tagteen Atoosh dadku Soomaalida oo idil badankood waxay u maleeyaan sababta aad ku kala tagteen in uu yahay barnaamijkii Durdur Media maxaad labada kiis u kala saari weysay maslaxooy oo ninkaaga Atooshna ula joogi weysay shaqada Durdurna aad isaga dhaafi weysay si kiisaska uu kala madax banaanaado my kiiska Durdur Media waa gooni kiiskan kala tagistana waa gooni maxaa isku soo beegay marka ay kala gooni yihiin maslaxo maxaa isku soo beegay safarkiya isku soo beegay markii hore Muqdisho anigu joogno inaan kala tagna arabna fiisaha soo baxay fiisii sida darteed qof xun ha noqonnaa dhahay ku bax sidaas oo ku baxay farxadda waa muujinay ma shaqada waa la wada maceen xagga daajir waa is dagaalsaneen oo maxal dhahay Muqdisho marka ku keenay furaayo dhahay haddana sidii aan kala waayahay xasan toob Soomaalidu badankood way garanaysaa qaasatan saxafiyiinta oo aan anigu kamid ahay adigu waxaad dheer tahay wad la soo shaqeysay oo si aad baad isugu dhaweedeen hol baad isla wadeen shakhsi cinkee ah ayuu yahay xasan toob sidaas kula macaamil jiray nin fiican ma ahan horto nin fiican ma ahan dadka xaqoodna ma ba iska dhowrabo
waa gartay hadda waxa jira iclaam gabdho la raadinayo oo shaqo abuur loogu sameynayo durdur media adiguna arinkaas waad ka hadashay oo gabdhaha waxaad ku tiri ha tagina meeshaas maxaa sababay waayo ay kan xal dhahay way lugoonayaan le wax faa'iido u hayaan maahan maxaad ula jeedaa way lugoonayaan waayo qofkan hadduu maanta ku imaado biri dambe inaa wax u gartidaa la yaaro hadaa garasho lahayn oo qofka dhididkiisa xuntiis maxaa meesha kaaga soo baxaya waayahay ebra kaaga soo baxaya sida anigoo kale waan gartay marka waxaan rabaa su'aalihii ugu dambeeyay ayaan joognaa maslaxo waxyaabaha qaarkiis way wanaagsan tahay in la qariyo waxyaabaha kale ee macquulkaana waan soo bandhigaynaa waxaa jirtay marar badan oo adigii Catoosh aad isku dhacdeen mar live aad tiri erey laga hayo oo caan noqday waan isku ilaalinayaa aad tiri markii dhacdooyinkaas uu dhacay ma sax bay ahaayeen wax jiro oo iyaga miya ku dhaheen baranki waaye dheh mise waa runtaa oo sheekada oo dhan baranki buu inta ii kala cadeey maay markii dagaalkii koo runo ahay ayaga idin baranki waa dheh intaanti runo ahay ani waalidkay raali galiyeen waalidkaygana ani kama weyn waalidkaygana markay i qaateen waa faray oo reerkaada dhaqay dhahan waan joogay dagaalkii koodna runo ahay kan haddana public ma keeninba si tartiibkeeda ku qarsaday caloosheeda ku haysta haddana sidii ku dhaca kala baxan haddana public ma keenaya waxa ku kala tagnay waxa isku iimaanay laakiin ninka xasan taab dhaay dhibaato weyn oo iigeystay ilaahiyana ka soo bixinayo waayay maslaxa waxaad ii sheegtay in dagaalkii ugu horeeyay ee telefoonka waan isku ilaalinaa uu dagaal dhab ahaa laakiin lagu yiri waxa dhahdaa waa baranki yaa ku yiri baranki waa bulshada soo hor fariiso kaamirnaanka muqtaar gaduudo xasan toob raad miyuu ku lahaa in aad dhahdo arrinkaasi waa baranki oo beentaas xasan toob waa qof xun ana hadda ku dhahay dhulka alaha la jaro ugu dambeyn maxaad ka codsanaysaa bulshada Soomaaliyeed halkan ka daawanay xal dhahay bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa in oo li garab istaago xal dhahay oo li caawiyo subscribe qofka maxal dhahay ani wax kala u baahanaa mala maanta subscribe iyo maxal dhiibgelin aan ka shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan qof lixleed laxad qabta oo shaqaysanayso shaqadeeda siyan qabanayso shaqadii oo liigu taageero oo li taageero u baahanaa daawadayaal maslaxo idinka ma codsanin lacag iyo wax kale waxa kaliya oo idinka codsatay waxay tahay inaad dhiirigelisaan YouTube-keeda aad raacdaan subscribe aad u saartaan qaybta hoose ayaan idin soo dhigay YouTube-keeda waxaan rajeynayaa in aad garab istaagi doontaan walaasheen maslaxo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa wareysiga ay alaamulan daawadayaal taasi waxay ahayd maslaxo salax oo wareysi gaar ah arimihii taagnaa aan kala yeelanay isla markaana wax walba si waadix u sheegtay muuqaalkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan dib muuqaalo kale ku kulmi doono waa saxaafo idin kala hadlaya adna channel oo idin leh sama salaamo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi